Turkigu waxa uu noqday dalka ugu xiriirka wanaagsan Soomaaliya. Waxa uu taageeray dhismaha xarumaha caafimaadka, waxbarashada, xarumaha dawladda, ciidanka, wadooyinka iyo ilaha dhaqaale ee wadanka, taas oo ay sii dheer tahay in dalku galka Turkiga loo fududeeyay muwaadiniinta Soomaaliyeed. Marka koobaad sheekadeenu ma qusayso ka hadalka Turkiga iyo taageeradiisa Soomaaliya, waxaan si qoto dheer u dul istaagi doonaa dhibaatada lagu qabo shirkadda laga dalbado fiisaha Turkiga ee horey loogu aqoon jiray MZ, haddase loo bixiyay Voya Visa. Soomaalidu waxay u aadaan Turkiga qaabab kala gedisan oo kala ah caafimaad, waxbarasho, dalxiis iyo deegaan. Waxayse tahay caqabadda qaabka loola dhaqmo ardayda Soomaaliyeed ee dalbanaysa fiisaha. Aan ugu hormarno caqabadaha haysta ardayda, laba ayay ka kooban yihiin oo midi tahay Voya Visa x MZ Visa, tan kalena tahay shirkadaha duulimaadyada xafiisyadooda oo inta baasaboorradooda ka qaataan ardayda ku yiraahda waxaan idin dalbaynaa fiisaha, waxayse dhigtaan xafiiskooda oo xitaa ma geeyaan meel laga dalbado fiisaha. Ardaygan oo aan qarinay magaciisa si baahinteennu aysan isaga ugu horseedin dhibaato fiisa helidiisa la xiriirta, waxa uu sheegayaa in muddo sanad ka badan uu ka maqan yahay baasaboorkiisa, lacag iyo shahaadadiisa. Marka hore waxaa loo sheegay in fiisaha Turkiga loo dalbayo, balse waxbarasho la'aan ayaa ku dhacday. Ha inoo warramo. Waxaan ka mid ahay ardaydii qalin jabisay sanadka 2019-2020. waxaan dalbaday fiiso Turki waxbarasho waxaan ka dalbaday travel agency. waxay sugayay sanad fiisahaas ilaa hadda ma haystay jawaab soo siisay. wuxuu iga haystaa lacag, shahaado iyo baasaboor. sanadka dhan asaga waxay ranahay ilaa hadda ma ka helin jawaab weef sanad dugsiyeedkii hore waa ka baaqday hal sano waxbarasho la'aan ahaa, kan rajo fiican ma qabi, waxa ka cabsanaa in asagana iga baaqdo. Eedda ardaygani u jeediyay travel agency-leyda waxaan isaguna dafirin oo run ahaanshaheeda sii sheegaya, isaga oo tilmaamaya in la daahidda fiisaha ay dalbaan timid maadaama aysan haysan waddo sax ah oo fiisaha ay ku soo saartaan, balse keliya ay hayaan macaamiil. Waa sax, waxaan u shaqaynaa dadka fiisooyinka raba. Marka ma haysano linki naga caawinayo dukumiintigaas fiisaha oo gudaha ku jiro. waxaan la wadaagnaa anaga waxaan haynaa customerkii oo fiisooyinka rabay, waxaan la wadaagnaa dad agency ah oo gudaha ku jiro. Intaas kuma eka sheekadu. Ubuucda ugu weyn ee dhibaatada ay ka taagan tahay waa Voya Visa oo dhaqaalo arxan darro ah ka raadiya fiisaha laga dalbanayo, balse qiyaas shaqadu waxa ay ka bilaabatay $60, hadda waxay maraysaa $220. kaaga sii daran, haddii aad dalbanayso fiisaha waxbarashada, waxaa laga qaadayaa $500 oo lagu leeyahay waa fududaynta shaqada, waxaana horeyna lagaga sii qaaday $220 oo adeeg ah. Lacagtaas laga qaadayo oo aan sharci ahayn kama dhigna in fiisaha aad helayso, xitaa waa lagu diidi karaa. Dhibaatada Voya Visa lagu qabo ayay ka tahay qayb yar. Awal safaaradda weyn waxaan ku bixin jirnay $60, haddana qoladii kambaniga MZ ahaa waxay soo ziyaadiyeen lacag $100 ah. maadaama saas ay tahay anagoo $100 ka sii $60 aan ka caawinaynay, haddana $100 laga dhigay, waa ku qanacnay. haddana $220 laga sii dhigay. 220 ayadoo laga dhigay, haddana ardaygii waxaa lagu sii ziyaadiyay $500, caafimaadkina waxaa lagu ziyaadiyay $1000. Ardaygan oo dukumentiskiisa soo diyaarsaday keliyana ay u dhiman tahay in fiisaha uu dalbado, waxaa lagu qasbay in Voya Visa uu ka samaysto waraaqihii uu horey bannaanka ugu soo samaystay, taas oo aysan u dhaxaynin wax farqi ah, balse keliya laga rabo in lacag laga samaysto. dukumiintiyada Voya geystay, Voya markaan geystay dukumiintigayga wixii oo dhan waa ii diyaarsanaa, insurance-gayga waa watay, admission-kayga waa watay, wax iga dhinnaa oo markaa ma jirin. lacagta ku talagalayna waxay ahayd lacag $100 ah. markaa meesha tagay kadib waxaa liigu dhahay niyo waxaan wax ka jira ma lahan, insurance-ga iyo wixii iyo shaqadii oo dhan waxay dhaheen annaga dib kugu samaynayno. waxaa liiga qaaday lacag $220 ah. $220 kadib waxa waaye aniga kuma qanacsaneen, laakiin danta igu qasabtay maadaama rabay inaan muxuu ahaa waxbarashada heerka labaad aan dalka dibadiisa ugu soo faa'iideysto. haddana kadib waxaa liiga qaaday lacag $500. Dhibaatadaas aan sheegnay iyo in kaloo badan
maadaama ay ka taagan tahay qaabka fiisaha lagu helo oo lacag badan iyo waqti uu ka galo muwaadinka Soomaaliyeed ee dalkiisa jooga. Waxaa kaliya ee markaan dhiman waa kaalinta dowladda Soomaaliya oo laga rabo in arrinta ay joojiso ama ugu yaraan dhibaatadaas ay farageliso. Haddii dowladdu qaado tallaabo, waxay shacabka ka raysan doonaan ajansiyada iska haysta baasaboorada iyo Voya Visa oo lacago sharci aan ahayn Soomaalida ka qaata. Waxaan sugnaaba waa kaalinta dowladda.